waxaan ku soo jirnay barnaamijkanagii ahaa ururka naafada aan kaga hadlaynay saddex qaybood baan u kala qaadnay saddex qaybood hal umaan sameynay magaranaysa labaan noo dhinayd labadaas waxay midkaas horta aan soo dhaafnay wuxuu ahaa xiriirka ka dhexeeya ummadda Soomaaliyeed iyo bahweynta naafada ka labaadna aan caawa doonayn inaan galnana waxaa weeyaan xiriirka ka dhexeeya dunida inteeda kale waxaan oola dalnaynahay oo sababkaan u soo qaadanayna barnaamijkaas xiriirka ururka naafada iyo dunida inteeda kale ka dhexeeya waxaa weeye isbarbardhig aan isbarbardhigayno Soomaalida taada inay quruxsan tahay iyo in laga fiican yahay midda saddexaad oo barnaamijkan mawduuca saddexaad oo aan ballan qaaday inaan ka hadlayno waxaa weeyaan sababta aan uga hadlayno hawlahan aan muhiimadda u siinayna maxay tahay oo wax walba faa'iidada laga helayo muxuu yahay faa'iidada laga helayo xiriirka bahweynta naafada in la wanaajiyo maxay tahay iyadana waxaan ka taabanayna haddii alla waxaanu gelaynaa marka aan waqtigu waan soo gaabinayaa intii macnaha inaan isaga rafto oo saacadda aan ugu dheereeyaan diidaya marka waxaan rabaa inaan taabto inta macnaha muhiimadda ah adduunka intiisa kale markaad fiiriso xiriirka ay la leeyihiin bahweynta naafada waa mid aad u wanaagsan marka loo fiiriyo Soomaalida inkastoo iyaga laftooda ay weli wax tabanayaan saasay tahay haddana marka Soomaalida la fiiriyo aad buu fiican yahay meel kale ma baadeynaba wadamada ugu dhadhagan Afrikaanka ka mid ah wadamo iska faqiir ah oo marka loo fiiriyo adduunyada inteeda kale iyo Yurub iyo Aasiyadas iyo America marka la fiiriyo wadankan Kenya yiraahdo wuxuu noqonayaa wadan iska maskiin ah magaranaysa kaaliftiisaan soo qaadan waxaan ka soo bilaabayaa dawladda dadkan waxaan ku xijinayaa shacabka qaabka ay xiriir oo la leeyihiin dadka naafada ah waxay ka taabanayaan markuu ugu horeyso horta inuu wanaagsan yahay waxaad ku garanaysaa waxay dadka naafada ku xuseen dastuurkooda ay ku sheegeen dastuurkay ku qoran yihiin in fiiro gaar ah loo yeesho in xiriirkooda la wanaajiyo nooc doona ha ahaadee waan akhriyaani dastuurkooda waa ilaa 48 page markaan maray had koor baan meel ka sheegay yaan ku daalo iska day indhaha ugu xanuun marka walaalayaal dastuurku ku qoran yihiin waxyaabaha ku qoran waxaa ka mid ah midna haddaan mid ka soo qaatay labo qof walba oo ka mid ah dawladda oo ka mid ah law enforcement waxa la yiraahdo shaqaale dawladeed ah waa inuu u sahlaa haddii uu qof curyaana helo ama qof naafa ah waa inuu u sahlaa waxa uu u baahan yahay waxaa shaqar baa yarta marka waa inuu u sahlaa waxa uu u baahan yahay taasoo loo fiirinaynin qofka naafada meeshu ka yimid macnaha qasab maaha inuu Kenyan yahay laakiin meel alla meeshu doona ka yimaadee qof walba oo dawladda waxa lagu amray qofka naafada ah inuu caawiyo oo gacan qabto oo u sahlo oo u saxiro meeshu uu socdo iyo waxa uu doonayo waxaa ka mid ah waxyaabaha la siiyo waxaa ka mid ah jaamacadaha kale discount baa loo sameeyay qofka naafada iyo qofka kale isku lacag laga ma qaado garanaysa shaqaraadinta sidoo kale hay'adaha leeyihiin waaweyn inkastoo wasaaradda aysan gaarin laakiin wasaaradda aan waxba ka liidan oo aad ugu adeega dadka naafada waxaan arkaysaa ka soo qaad meeshaan la yiraahdo nimankan oo askarta ma doonayeen inaan qoliyahaas askarta sharaf bay agtooda dadka naafada ay ku leeyihiin ma garanaysaa askarta Soomaalida way ka sheegtaan oo waliba Soomaalida aan sharciyada lahayn laakiin marka aan fiirino dadkan bahweynta naafada ah sharaf bay agtana ku leeyihiin waa ma doonay marka inaan maanta wanaagooda mooyaan aan xoogo cilcilahooda yara sheego marka qofka naafada ku hor yimaadaan maxay sameeyaan way kala xiraan waa istaagayaan ninkaas aad arkaysid wuu istaagayaa ma garat inuu la hadlo sharci weydiiyo iska daaya maalin waxaan garanayaa كليين ومدني قف والبقى والنافع عريس الصولة ودن كين وكلا كلمة معناها
soo dhaweyn iyo wanaag iyo magaranaysa maalin waxaan garanayaa nin baa la xiray ninkaan wadada maray ii dhawaaqay niman muxuu ahaa sinaqaani buu ahaa oo qaraabada ah ninkii baan daba galay waxaan la aaday stationkii ayaan la galay stationkii baa adiga wax lagu xirxiray waan soo noqday wixii baan soo raadiyay waan soo waayay oo ku soo noqday haddana waxaa la yidhi shuruudihii lagugu xiray inaad keento mooyaane inaad buuxiso mooyaane macnaha ninkaan laguma sii daynay waxaan sameeyey waxaan ku yidhi yaa aawo sarkaalkii stageka xukumay aawo xafiis baa ii tilmaameen xafiiskaas ku jiraa bay igu yidhaha xafiiskii baan aaday marka albaabkaan u garaacay waan fariistay ninkii waan la hadlay wuxuu yidhi waxba kama qaban karo nimankaas hawsha ku jiray maaragtay la dhiilgaree annagu aan iska aamus meeshaan fadhi orod buu yidhi marka bax ma baxayaan ku yidhi marka ninkaa in laii sii daayay ma baxay way isu ka yimaado way u qalqaliyeen dhinacyadii iga istaaga waxaan ku yidhi intaad ay qabataan bannaanku waa ku xiraynaa waan jabeen ma garata waa ku xiraynaa xiraan ku yidhi in ninkaa laii sii daayay marka hoostan waan ka yara baqayey xoogoo dabacsanaanna waan ka arkay moogta nimankan ay dadka naafada u muujiyaan marka isku halin baa yara jirta laakiin marka qaarkood isku halinta lafteeda way kula gadoomi kartaa adiga yaana war kugu daalinin waxay noqotay ninkii liisiyadaa ay noqotay hadduu soomaaliya waxaa munaynaysa hadda kahor baan dhowr jeer ka sheekeeyey inaysan macnaha soomaalida xaggaas haddii dowlad yihiin iyo haddii askari yihiin haddii magaciis ay yihiin inaysan u fiicnayn dadkaas oo naafada ah oo isku waddo ay mariyaan kan cagaha qaba oo lixdii salaxataam ay tahay kan curyaanka isku wadday marinayaan ma garanaysa maalin waxaan garanayaa niman taas waa dowladda waaye haddii askar noqoto haddii shuruucda dastuurka uu noqdo hadduu magaciisi ah maasha allah weeyaan ma garatay marka bal soomaalidina wataan waan ka soo sheekeynay haddii dowlad tahay dastuurka maxaa lagu qoraa waxaa lagu qoraa nimanka baarlamaanka sida mushaarka u korsadahay iyo muddo kordhin iyo mushaarkan kordhin maalin waxaan daawanayay waxaaba dastuurkooda ku qoranba oo xuquuqooda keliya nimanka baarlamaanka ku jira ayaga isku qoraya moogta mushaarkoodii kordhintii waqtigii muddo kordhintii haddii aan lagu samay inaan la taaban karin inuu magaciisa aan la xiri karin inaan maxkamad la soo taagi karin inaan magaciisa bala cid kaleba lagama hadlayo iyagan baa iska hadlaya keliya dadkii u baahnaa dastuurkan muxuu kala leexyahay wuxuu kala leexyahay dadka in lagu kala ilaaliyo xiriir ma garanaysaa dadka xuquuqdooda in lagu siiyo kan tabarta daran in lagu daafaco laakiin kii soomaaliya muxuu noqday midkii xoogga badnaa baa lagu daafacayaa kii waxaystay kii baarlamaanka ku jiray kii askarta waardiyeynaysa baa laleeyahay lama xiri karo baarlamaan lama soo saari karo lama waxay karo cajiib oo wallah alloo sakhir weeyaan hawsha adduunyada inteeda kale waa noocaas waayo qofka xataa wataan kasoo sheekeeyo xataa waxaa dastuurada iyo ugu qoran constitutionadooda waxaa ugu qoran inaan xataa qofka isheg cajiib waa marka nimayahow maalin waxaan garanayaa oo macnaha isbarbardhigii waa sheekaan wadaa moogtahay sheekada lafteedana waxbaa ku jira waa wax oo waddankii ugu horreeyey ee nala midka ahaa ee isku qaaradda aan ahayn baa noocaas ah haddaan kasii gudbo maxaa u malaynaya marka waddamada kale aan aaday waa cajiib waa macnaha dee qurux iyo si wanaagsan bay oola dhaqmaayaan dadka naafada ah meesha soomaalida dee aad looga qurux badan yahay aysan macnaha u fiicnayn fool xumo waaye fool xumo iyo calool xumo waaye macnaha ya maalin baa waxaan garanayaa meel aan deganaa oo adiga meel oon isheeg hadda qaxooti meel xeer qaxooti utaangaa la dhihi jiray utaangadaasaan joogay marka askartii soomaalida baa isdishay meel oo jeel meesha ku yaallaa iyay boosas iyo guryo ka dhidhisteen marka askartii waa laga burburiyey soomaalida haddana way ku noqdeen meeshii baa dagaal ka dhacay awalna qolaa meesha degan qaqaawan oo weliba marka la fiiriyo dadka kenyaanka ah dadka ugu jaahilsan ah oo ugu cawaansan way qaqaawanayeen markaan meesha ugu tegayna ma garanaysaa caadi u qaqaawanaayeen dumarkooda ugu qaqaawanaa wax yar baa xagga qaarka hore haluba iska ahayd marka waxaa dhacday sheekada waan soo gaabinayaaye meeshii baa waxaa dhacday haddii alle kuu sama leeyahay askartii iyo soomaalida waa isgashay giiryaamada xoogoo wax ka yara dhexeeyeen oo meel boostaaja ah oo giiryaamada baabuurta laga raaci jiray boosashada ugu shishaysa utaanga
baabuurta laga meeshaas Soomaali maalmo isku qabatay midda kale beere ay lahaayeen waxba laga dhistay ma garanaysaa marka xaaladdu Giryamada iyo Soomaalida oo yar kacsanay marka tii Soomaalida askarta markay bilaabatay Giryamada halka soo gashay marka dhinacaas wax ka dhaceen annagana dhinaci kale حق مركي قب كيرت حبط بعد عظيم مركي قلت مركي طب ناعي طب وين هذا وين هذا هذا حبطها بلعبت هذا الساس حبط بقى نقول جل مركي سام حبط يعكس عارف نجي وكده عيم حكي لنسيه يعني ضد بدنا وقحوي بلاوين إن معناها هذا ملو قحنا مرها وضد ما هي زين سبقت من جيران أنا حكوا جيران هذا مركي واحد كسعني بقى كسعني صف دير أو فلارة وطه يعني سوقرا وجيران Soomaalidii umbe ku bilaabeen wiish ana way ugu horeeyeen marka kuwa badan bay ugu horeeyeen wixii oo yaacay hadda xagaan u carari wuxuu meel gaari ma arkay geed baan iska istaagay meel baan wadada bartankeeda iska istaagay Soomaalida waa la ciisay falaara la riday magaciisa alaabta wixii ka soo carreen niman falaara wato oo falaara ku hubsan mar soo galay marka anigii markii meeshii imarayeen nin baa hadlay way wada istaageen agteedii way soo dhoobteen tartiib gacantii taageen waxba handheen nimankii ciirsanayay dadka ee dagaalka ku jiray markay anigii arkeen in laga cararay oo halka aan taagana sidoo Ilaahay og yahay waa istaageen macnaha waxay ka xishoodeen in bal hadaa ku sameeyahay ninkan laga cararay bal inay iga yaran xiyaan way xishoodeen ma xishood ku soo dagay halkii uu dagaalku ku istaajiyay Soomaalida meesha ka carartay أنا ويساق حيل يقول ماشي كده ويكانه ماشي صاري شيء واسك فريستي إلا يهمن بركي ماشي في النية مركان عرق طبكي وحين يستاجي أو مركان سوي راح حتى واسك بحكتها وحول بو استاجين أورليرية في مركان صان قضي قحتيجو أو كلا بركبتي يعني صان هو مركان ولا حتى شعب كذا وكذا دولة دي تصور كهو قرن بحاول ينقف كان نافذ عمل الله المشكي ما ده حلقة فيريو باورته فير هذا بس أسكت public transportation هذا كوا وين مقالين كلا هذه وتوقعي وكأس وفاكهيس وعد معناها وحبها هي وبروسيس وهاي معناها هذا باور خاص شدال وباهي هاي وحلاقة في هذا وسفر دير مرخوف سفر دير هذا هوش ده وهاولك لكن مد مقالات يا عاصي هذا مقالة برتن كذا اللي قد دينتي مقالة برتن كذا ما كانت العجم ما هي محاك سور رعي ولا بدي هذا العجين ما قالت هذا العجين محاك سور رعي dadka shacabka joogeen wax ku naxay maarks mid waa arkaysaa war maxaa ka daayay magaciisa anaga bixinayna kule laakiin majority inta macnaha u badnaayeen waxa weeyaan wax oo ku naxay malaha aniga markaan sidaas walaalayaal aniga Soomaalida weer kumii dadkayga weeyaan meel aan Ilaahay baa ka dhaliyay meel aan uga baxna malaha wanaagooda ma rabaatay wanaagooda garanaysa wanaagooda aniga wanaagayga ah marka wanaagsanaada mooyaane macnaha hadda wax kale adduunka kale marka fiiriso xiriirka ka dhaxay Ingiriiska Yurub Mareykanka waxa Ingiriiska kale waa nimanka cajiib ah way moogta ya Ingiriiska kale waxa arkaysaa qofka naafada ah da sharciga iyo dastuurka ku yaalaan waxa iska dhaafa macnaha waxyaabaha loo qabto guri qofka naafada ma yahay guri baa la siinaya guri hal la siiyo haddana haduu baawur wadi karaan waxa leeyahay baawur cusub soo qaado baawurka laga bixinaya qof guriga u adeego oo cuntada u karo dharka u dhaqan waa loo qabanaya waxaas oo dhan waxa waay waa non-negotiable waa macnaha wax laga wada hadli karo ma banaanka u yaalaan waa gurigii qof haddii la ku sameeyay u adeega hadduu baawur wadi karana sanad walba nimanka degan weydiya ya waan tagay waan soo fiiriyay macnaha inta waxaan sheeko u qaatay sanad walba waxa la siinayaa forger oo boona يا لسيني وحلي يورو فوجر كان ديال كوسي باور كوسو قاد maxaa yeelay sanadkii hore waxa mid cusub ayna soo qaata lama rabo qofka naafada yaa leeyahay inuu baawur meelaha la fariisto marka waxa la rabaa baawur broniyo abal rabaa meesha aan doonayeen hadda waan u socdaa meesha aan doonayeen ka hadlo waxa waaye bahalkan la yiraahdo nimanka Ingiriiska la yiraahdo وأركسين ومعناها هذا أنت أسبق واحد أدونك مريكا حتى هم إحنا في مع كمليته مرة في سبحانه سيدو تذكرنا فضا وهو قبنا هذا سكول تاعي هذا مقعيس تاعي هذا مقرنسا وحول بقى يا وهري وإحنا فيها مصابح نمبر 1 يجوا
baanin Biden waad garanaysaa madaxweynaha Mareykanka ayaa wuxuu soo saaray in wax la yiraahdo forgiveness student loan forgiveness wax la yiraahdo ardaydii jaamacadaha ka baxay ee deynta dawladda ka qaatay deyntan u cafinaya wiil nimankii aqal labada aqal haysta way buuqeen waxay yiraahdeen dawladda lacag badan ba ka baxday lacagteeda waa in soo noqotaa anaga dhifis ku jirna anaga deemin lagu leeyahay magaciisa waxyaabo noocaas u marsiinayaan marka deyn cafin oo intaas bilyan oo macnaha hal mar lama cafin karo isagana wuxuu yiri in zero ka wada dhigi roo ardayda deynta lagu leeyahay oo way ka hor yimaadeen markuu arkay in jiq laga dhigay iyo curyaaminta horta xagga ka dhig curyaa wax ka hadlay ma laha cid ka hor imaan karta curyaaminta yaa la hadlay waxa la luxu curyaan horta waa cafiyay waxa la luxu curyaana oo deyn lagu leeyahay iyo number 1 iyo markuu arkay inay guud ahaan laga hor yimid marka dadana maxkamadda diidayba laakiin kii curyaanka ahaa labada aqal wuxuu yiri yaa ka hadlay maxkamadda kama hadlin labada aqal kama hadlin waxa la luxu curyaan ah people with disabilities waxa way student loan forgiveness waxa way automatic iyo qateen ma fahanti wixii hadda wax hagaagi waayeen barta iyaga banaanka waxoodu yaal cid ka wada hadlaysa malaha ma fahanti innagana xagee ka bilownaa kan daciifka kama bilownay kan qawiga ah ee kor jooga ee baarlamaanka ku jira xuquuqdiisa laga bilaabaya inna maxkamadda saari karin inaan dabageli karin inaan magaciisa mushaakil loo kordhiyo madaxweyne waqti loo kordhiyo marka fiirsana wallahi hal page inaan maskiin ku soo qaadin marka waa xiriirka dunida iyo dadka naafada ka dhaxay intaasan ku soo xiraya macnaha kuma si dheeraanay sababka marka muxuu yahay muhiimadan yaa waxaan horta walaalayaal mar kale aan ku celiyo aniga dadkayga rab inay wanaagsanaadaan waa aniga qasaskan leeyahay ma fahamtay iyagana runtii ugu fiican markii la fiiriyo asal ahaan markii la fiiriyo Soomaali baa hor dadka ugu fiican maxaa yeelay nimankan aan hadda ka hadlayo iyo adduunkaas iyo dadkaas macnaha aan inaga ahayn iyo cadaankii gaalada waxa markaan ka hadlayo waxa waaye system ay nagu dhaafeen mooyana wanaag inaga wanaagsan yihiin nagu maysan dhaafin system ay nagu dhaafeen niman oo isha madaxdooda ah oo wax fahmay ayaa system u dhigay systemkaas ku caana maaleen systemkaas aan looga tagay systemkaas aan dul ku noqon systemka la marka Soomaalida dadka naafada inay wax ka bedesho intaas ma aanay u hadlayaan laakiin asal ahaan marka la fiiriyo anaga Soomaali wax ka fiican ma maxay qofka Soomaaliga kama suuroobayso ilmo uu dhalay oo naafa inuu meel ku tur waa laga yaabaa dadka la qaataan iyo dhaafi iyo magaciisa waxaan ka hadlay macna islaafin way jirtaa laakiin inuu macna ma garanaysaa u dheereeyo ama uu ilmihii u dilay naafanimadu iyo kan waa naafay dil kuwan way dili jireen way dili jireen walaal marka alxamdulillah Soomaaliya dadku ugu fiican waxaan ugu dhaafay way dili jireen ee dadkan waxa waaye dadkii wax garanayay baa arkay meesha wanaaga ku jira markaas system iyo shuruuc u sameeyeen oo dadkaas masaakiinta lagu taageeray marka iyagana way ku ribxeen oo ku faa'iideen ma garanaysaa anaga marka systemku ma lihin ilmi la bedela laakiin waxa waaye system kale lagu taageeray ma laha ma fahanti saas marka Soomaaliya dul ku noqotay oo adduunka ugu dulsan yihiin dadkan hada fiiri marka fiiriso waxaan ku sheegay waliba daliil aqli ah intaan daliilka sharciga aan ku aadin in daliil aqli ah ku siinaya qof miskiin ah ninka taageer waa sharci iska dhab daliil aqli laakiin fiiriya maskax ahaan ku fiiri fiiri adduunyada dhan waa wada daliil moogta waa wada aayad ingiriiska intaas ilaa hadda adduunka isaga haysta watii la dhihi jiray caalamkiisa gabadh uma dhaco qoraxda waa u soo jeedaa maxaa walaal saa ku noqon maxaa adduunku qabsaday xaqiiqda markii la fiiriyo dadka karti badan yahay malaha dadkana kama xoolo badna waa jasiirad xun oo wada biyo miran buu dhex fadhiyaa ma fahanti dadka xoolihiisa gaas oo magaciisa macdanay kama xoolo badna waa laga xoolo badan yahay maskaxa uu dadku qabsaday malaha dadaa fiiriyay oo fikra arintaas waa arin xaqiiq ah dadaa u fakaray wuxuu meesha doonaan ha ka keenaan waxay yiraahdeen masaakiinta markaan cirka geyno ayuu Ilaahay cirka geenayaa yiraahdo kaligoodna ma waxa lagu arkayso dhantaas waa
adduunka si u kala qurux badan yahay ayuu u kala kaalmo badan yahay ha waddanba waddankaad arkaysa uu ka qurux badan yahay uu ka kaalmo badnaa dadka masaakiintu kaalmeeyey dadka masaakiintu xuquuqdooda macnaha yuu meel dhigay xuquuqdooda dhinac iska dhigay markaa kadib ilaaha qurxinaa marka fiir bilcaqli ahaan ku fiiri kii sharcigana waa kana marka fiiriya qur'aanka naga kariimka ah aayadda ugu horeysa waxaa weeye bismillahi raxmaani raxiim bismillahi raxmaani raxiim maxay ku bilaabataa waa ixsaan waa raxma magaca ilaahay bay ku bilaabanaysaa magaca ilaahay maxaa ku xiga waa ixsaan waa naxariis khaas ah iyo mid caam ah naxariis oo caam ah iyo mid khaas ah tan caamka waa adduunyada gaal iyo muslimba ilaahay uu naxariisanaya tan khaaskana waa aakhiro dadka mu'miniinta ah ayaa loogu talagalay keliya adduunya aakhiro waxaa lagu kala ridlo badan yahay iyo raxmad badan yahay nimco badan yahay janno badan yahay sida adduunyada loogu kala cibaado badnaa haa oo ilaahay darti macnaha waad garanaysaa adduunyadase waxaa looguma kala rax badnaa sida loo kala masaajid badan yahay iyo sida loo kala qur'aan badan yahay iyo sida loo kala cibaado badan yahay adduunyada looguma kala raxmo ilaahay dadka uguma kala naxariista uguma kala roonaado arrintaa dhegeyso markalan ku celinaya aakhiro ilaahay addoommadiisa naxariistiisa wuxuu u kala badiyaa sida ay ugu kala cibaado badnaayeen ya ayuu u kala badiyaa adduunyada ilaahay naxariistiisa wuxuu ugu kala badiyaa ma aha siday u kala cibaado badan yihiin ee waa maxay siday u kala ixsaan badan yihiin waa ixsaan badan yihiin ayuu ilaahay adduunyada addoommada ku nool gaala iyo islaam waa u siman yihiin naxariistiisa horta bismillahi raxmaan raxiim waya waa u siman yihiin ha kama xigtid islaamaa tahay masaajid badnow qur'aan badnow cibaado badnow kaa gaalka ilaahay naxariistiisa kama xigtid markaa adduunyada joogto waa u simantii balse waxaa lagu kala badsadaa sida loo kala ixsaan badan yahay maaha sida loo kala masaajid badan yahay waa sida loo kala ixsaan badan yahay waay aayaddan dhegeysta marka hal aayada yaa waxaas dhan kaaga filan ina raxmat allaahi qariibun min almuxsiniin ilaahay naxariistiisa waxay u dhowdahay kuwa ixsaanka sameeya intaasaa kugu filanta marka ilaahay intii ilaahay wuxuu yidhi ixsaanka cajiib waaye diinta oo dhan albaabka laga galo diintanada islaamka ah albaabka laga galo waa ixsaan macnaha waxaan ka hadlayno ururka naafada xiriirkeeda hala waajibo haloo naxariisto haloo dhibriyo haloo rifqiyo waa macnaha ya saas waaye marka waana ixsaan ogow diinta meesha laga galaayo waa ixsaan waaye albaabka laga galo waa ixsaan udurdhaxaadka waa ixsaan saqafka waa ixsaan meel walba waa ixsaan ixsaankii haddii la waayo waxa kale waxba ma taraayaan qur'aan badanaa akhrisaan waxba tareen ixsaan haddii lagaa waayo waayo qur'aan akhrisaan waxba tareen masaajid badanaa dhistaan waxba tareen ma garat ixsaanka in la helo waa horta ha ixsaanka wuxuu kasoo bilaabanayaa iimaanka iimaanku kasoo bilaabanaya walaalayaal ya alixsaanu rasuulkii salawatullahi wasalaamu caleyh an tacbud allaha kaannaka taraah fain lam takun taraah fainahu yaraak ixsaanku kaasa waa iimaanku ka bilaabanaya ixsaanka ilaahay u caabud sida adoo wax arkay dadan arkin isagaa ku arkaa naftaada u tur waay macnaa ixsaan u samey naftaada u tur cibaadka ka badbaadi cibaadada naarta ka badbaadi naftaada ayaa dani ugu jirtaa diinta inaad ku toosnaato naftaada u tur ixsaanka halkaas ka bilaabanaya iimaanku ka bilaabanaya maxaa ku xiga marka wabilwaalidayn ixsaan adiga taada marka laso haddana waalidka u ixsaan samey wadilqurbaa qaraabada haddana walyataamaa walmasaakiin masaakiinti soo soco marka dadkii baa laga soo tegay moogta xadiis wuxuu yidhi rasuulku wuxuu yidhi salawatullahi wasallam in allaha awjaba alixsaan calaa kulli shay haddana shay walba inaad u ixsaan samayso xayawaankii bisadaha
eyda shimbiraha ya waxaas dhan markii ilaahay waxa la yiraahdaa markuu qoom u rabo inuu duleeyo ihsaanku ka siibaa marka kadib la duleynaa sida Soomaaliya hadda ugu jirto waa Soomaaliya ilaahay wuxuu u duleeyay ihsaanka ka maqan ihsaan malaha u fiirsado walaalayaal waxaan sheegay inaan iska soo waxayna ihsaan malaha walaal cidna uma ihsaan sameeyaa inna allaha awjaba al-ihsan ala kulli shay shay walba waxaan soo jir eeyda hadda daarto albaabku soo maraba dhagax bam wala qabsiina bisada ka yara maqan bisada u fiirso waxa baqay jin way yiraahdeen jin bisada waxa ku marftaan ina jacayl ma malayna jacayl ma marra ma abur faa yiraahdeen jin way jin mido fushayran jin mido habar jin ba fusha laakiin eeyga waa arteen albaabku soo maraba dhagax la qabsiina bal hadii macnaha nijaasadiisa hadii isku waafaqsan yahay xataa qaabku nijaasu yahay magaciisa nijaas iska ilaali baa lagu yiri mooyaane ma midil baa ya على كل شيء معنا جدا حتى سوق جدا حتى حقوق قولي إن لا إلاليه محير الدنيا نولش هذا أردن وحول بإلهي السماء حكمة بسماء نولش الدنيا أنا كجرت وحدنا مع هذا مرك وحول بإلا إلاليه وحي لكن ضدك اللي بعينا والسكا قبنا إن الله أوجب الإنسان على كل شيء مرك إلهي وحي إن الله يأمر بالعدل والإحسان عدالة إحسان نول اللي جوا واحد جرمها والدل واحد نبى جرجر اللي قارون وكملها رجي نبي له موسى أصحابتي سكملها نقعد قرصن بوها قرآن كي وكله قنجر تورد وآد وكله قنجري حق الله رجع على هذي نك معناها نبعي إلهي بالسي حوله لهذي مقرنسها نبي موسى وسوق كان ميرنتي مركا نكي وكبر مركا ومعنا أيضا حتى تسيرسا حتى ميلها مركا في الزكاة مركا في الزكاة الإحسان هو زكاة الدين تقول ما إحسان دين بلا إحسان الدين ما إبروا واحد كتير مرة ميلها بيقولوا في سكتة معناها واحد كودا كل رقم كذا عدد الدين كل رقم ما إحسان اللي جواي وعبا دينكم هذا رقم إنك مركا زكاة أركيسيد وإحسان هو ما فهمت زكاة اللي يري هلا قدتك على هلا بحي واجبك ومساكين تأسلون كلمة يا زكاة لو سمي قف جديدنا وقرنيسها دين تنا الإسلام هذا شرع إسلامي أجتوا معنا حكم إسلامي أجر ولا تقال معه نك عمرك قارون حوله بدن بإلهي سي حولنا وقرنيسها وتي ومر إلهي كشي كنا يجري ما البدن بنا حد يعني أقول يقني لتنو بالعصبة أولي القوة معناها حتى واحد الإسكان في فرياش مقرنيسها furayaasha xoolaha uu haysto bakhaarada ay ku jiraan furayaasha soo wax yar ma 70 nin bay bilcusba ku sheegan culimada 70 nin baxta ma qaadi karto iyo wax ka badan ma garanaysaa ninkaas oo kibray marka zakadii buu diiday masaakiinta la siinay marka taqwa aayad anaga la hadlaysa laakiin ilaahay wuxuu ka xikaayay qoomkiisa oo dad wanaagsan ahaa baa la hadlay waxay yiraahdeen wabtaqi fima ataaka Allahu ad-dar al-aakhirah يا وروح إلهي كسيي آخر كرادي وحبا إلهي كسيي وحا إن معاد إلهي كسيي حولك اليوم هدي إن إلهي كسيي ها آخر كرادي هدي إلهي ده كسيي ما فاهم إنسان إن معاد إلهي كسيي هدي له كسيي تفهم مساكين هو وحين ها هدي حول إلهي كسيي وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ودتك وناجي يكون إلهي سيدو إلهي يكون وناجي يا دتك المساكين تاع هذيك حولها هذا الجاب كذا كجرا حتى واحد قسم ما ينعكس كسيس إنك صدق الزكاة اللي يقولي واحد الزكاة إذا بحسه وحي كلا عد قسم كولا مرة لكن واحد دتك كده هي دتك لو تلاقي مساكين تاع لو مري سازو معنا حتى وحاركسا الدولة هذا يا ماشي انتهى على اللي هي إذيك إذا متشاه هي وزارة ما يعني وزارة سبورتك وزارة مجلس وزارة مارت قال هذه الكوسة من هي نقول على قلنا
wasaaradda masaakiinta iyo curyaaminta iyo naafada iyo ma arkaysid hay-adaha yar baa loo sii yaran saaxiibana wuxuu yiri hay-adihii yaraana oo magac ku yaal hooyo oo hay-adahaas adduunyada wax kaga qaadanayeen xataa waxay geysteen buu yiri niman bromada gaandhiri oga ahaa oo xabadi ku dhacday iyo meesha fariisteen oo veteran oo bixiyeen waa ninka soo halgamay brom bushara oo gaandhiri oga ahaa moogta kuwii bay geysteen waxaan ka soo wadaa marka war waxaan ilaahay ku siiyey dadka ka wada dhexeeya waxaa waaye masaakiinta in ixsaan looga sameeya waxa laga sii weeyaan ilaahay ixsaanka fiiri wa ahsinuu war ixsaan sameeya xusni iyo ixsaanku macnaha waxaa waaye wanaagga oo dhan waa ixsaan waaye wanaag oo dhan waa ixsaan macnaha wa ahsinuu in allaha maca almuxsiniin in allaha yuxibu almuxsiniin ilaahay wuxuu jecel yahay muxsiniinta آيات كلام وتاهي فأعطاهم الله دار ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين كون محسنين إلهي وجه عليه محبة إلهي أيها ضدك إحسانك سمي وناك وصاحبك محبة إلهي با لا درس دقي رحمة إلهي با يدرس لا إلهي هدنا وأدويه إن رحمة الله قريب من المحسنين كو إحسانك سمي إلهي أدويه مركا الدنيا هذا إسلام maxaa masaajidadan badan iyo quraankan faraha badan iyo cibaadadan badan loogu naxariisan lahayaa ilaahay adduunyada naxariisiisa iyo raxmadiisa saa wax kuma bixiyo wuxuu ku bixiyaa sida loo kala ixsaan badan yahay sida bilaadanka aad ugu ixsaan badan tahay masaakiinta aad ugu kaalmo badan tahay yaa xayawaanka aad u naxariisato geedaha u naxariisato aad u ixsaan samayso sidaasuu ilaahayna kugu naxariis badnaanaya xadiis baa ahaa rasuulku ku sheegay islaan baqi ah oo xad gudubtay oo macnaha diimihii horaa waqtigii macnaha intuusan diintan ay soo bixin diimihii ku horeeya islaan baa xad gudubtay iyadoo duurka iska wareegaysa ceel bay biyo ka cabtay biyi markay kasoo gadoto waxay aragtay ey afki ciidda kula jira markaasay waxay ku siisay haddana weyd ceelkii kusoo noqotay eygii bay biyo waxay ku siisa weyd gacanteedii ku waraabisay islaan xad gudubtay bay ahayd qaabkay doontaa ku xad gudubtay oo macnaha oo camalkeedu ahaa iyo caaqibadeeda naar ee ahayd rasuulku wuxuu yidhi islaanti jannada waxay u gashay eygii ay gacantiisa ku waraabisay asxaabtaa rasuulka weydiisay oo tiri masaasa janno lagu galo saasa ilaa dadka ugu kabad qoyan oo aad u xisan samayso macnaha waa ridlihiisa iyo raxmadiisa lagu kasbanaya marka eygii baa saas ilaahay wax walba oo aad u naxariisato بلادك كون كي ولا كا كور كي ولا كان كور عجيب واي إلهي وحواي معي كل شيء إلهي وحوي كو إحسان كسمي كو إلى الله كبقى أي إلهي معي سيء كو إحسان كسمي أي يقول لي جراه رب الدنيا أنا إنجهم إلهي نحريسي سوح وكلا بديا سلا لوكال إحسان بدين ور أرنتاس نيو أرنتاس فيرسة وراليالو سلا لوكال مساجد بدين معها وسلا لوكال إحسان بدين الدنيا مكان جون إلهي رحمتي سي نحريسي يو وكلا بديا الدنيا ماذا وكلا سيا سو أفيرني كان قال كاي كان إسلام كا إحسان كا الدنيا ولي الله أبارك وجدت قلي الوصو عرورنا قلي ترسيا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين بإلهي كو أنا نرادية وأنتصنا باش أنا كجن وضدنا نكو هجنا إلهي يلجرا لمع المحسنين كو إحسان كسمي يلجرا وبشر المحسنين بمرك إلهي وبشار كو إحسان كسمي وناك إحسان كي ينحرست يدمرنت وطرد وصاحبك إلهي مركز كوكري وعيري هدي مركز تي نوع أساس ومركز ولا الصومالي وحايست إحسانك كوير إحسانك يا كوير معلم وحايري صومالي وحايسته جزاء وفاقا بحايسته الجزاء من جنس العمل الجزاء إلهي أبا المرنتي سوحاواي حدبه وحا الله تيمادو حداد حمانة تيمادان إلهي
وأكو أبال مرينا حداد وناك قلت ما تاني إلهي وحكوا أبال مرينا يا نحمد رحمد يا نحريس بكوا أبال مرينا إلهي يواردي إلهي وكعر على النقطة يا معناها لو أبال مرينا حداد حمان قلت ما تنا فتوى حمان تاسوه مركا الجزاء من جزاء هل يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى إلهي المركلة كوا معناها عايد مالك كوحنا إلى لامتن الأجلية ويموتها وعلاج استماش كنت هذا ميل بعايد كوحنا لكن معناه سام واحد أنا يجزي الذين أساءوا بما عملوا إلهي كوا أبال مرينا يا حماه السمائي وعمل قضوا وحما إلهي وأبال مرينا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى كوي إحسانك وناك دمرنت سمينا وناك كأبال مرينا وناك سومالي مركا الجزاء من جنس العمل وحيزتا تدخل المساكين تابعي كتاكين ويكوتنتين ويكسي جستين ما انت دويدا معناها أولها المه صدح جربوا أويا أنا صدح دي جربوا أوينا ما انت دويد برنامج كوري ما كتوبي وعن إري المه صدح جربوا أويا أنا كانت سيدي من أوينا هذا أوركا نافذنا هو أنا لقيتكين اللي هم سو جيسنين ما قرأت نلما طبيبين اللي هم سو جيسنين سيدنا لقيتكين نعنا فيرن ولا ما لهانين يا شرعي معناها أنا إن لو حصارنا وحارمنا إن لو حصو وأنا لو حصو وحن دوننا ما كمان عويا إن لو حصو دستور كان لو حصارنا وحارمنا إن حدي إن لقور هيو أيام رمنا وحارمنا وحي صدع oo dawladdaas u soo dhaca ama dadka masaakiinta ah waxooda in la siiyo oo aan guryo lagu dhisanin oo macnaha aan baawur lagu gadgadanin aan baawur lagu gadgadanin guryo lagu dhisanin wuxuu arkaysaa moogta nin wasiira maalmo wasiir yam ka saarsan daba xaqu ka keen ya rabbana daba saxu geena walaalo daba xaqu geena maalmo dambe waxa arkaysaa ilmihiisa oo laba nin baan arkay indhahaygan saar labada nin horta ma nin waa arkay laba nin oo madaxdu waaweyn oo Soomaaliya kamid ah nin waa arkay indhahaygan saar ninna waxaan arkay ilmihiisa arkay dadka qaraabada ahaayeen waxaa la yiri ninkan waxa waay ilmihiisa arkay nin ilmihiisa iyo caruurtiisa maanta tab ku ugu waaweyn kamid yihiin oo dad waxa waay aad u asturan dad aqoon leh dad macnaha waxa waay sharaf ay ka muuqatay nuur ka muuqdo waa aabba marka ninka madaxda xusumeyn jiray mushaarkiisa wax ka badan muusan ogolaan inuu ilmihiisa siiyo ilmihiisa inuu mushaarkiisa wax ka badan inuu siiyo ma ogolaan beer iyo meelaha ka xoqan jiray oo wixii dheeraadana uu ka waxin jiray midna dabaqyo iyo dawaan magaciisi ma garanaysa xagga magaca dibadda gee xoolii masaakiinta loogu dhiibay labada ninba waa dhinteen midna ilmihiisa waa dacdaasay la mid yihiin oo eber waaba firku ayba midna ilmihiisa maasha Allah way maanta marka sidoo waa saas waa adduunyadan walaalayaal inta yarta ah waxa weeyaan waxaad ku leedahay luqma aad geliso iyo meel yar oo aad seexataad ku leedahay dadku dhan luqmadaas inta yarta way helaan marka waxaan dan kugu jirin dabaqaana taagaysid iyo waxaad carfanaysa maaha wax yar adduunyada ku dhashay waa dhimanay dad bari ku baashaalay aad ugu akhriseegtay وقضية بالحرامي فأنا تقبل دعوته ضدك مساكين توحى وصية نماية المهنة عزيز سنة ضدك مساكين تصية ضدك وحان حولها مساكين تا اسكالها إذيك ملي دي مرة إذا شقيسين دبغيات أكو تتاقين إنسان أو بوساسك أكو جيحان إنسان أو عاد مقالات أكو جيحان إنسان وح إن كبضا واحد معها وح إنتراي معها فانا إذن وح كل مجران madax waaye maalinta waxa arkaysaa isagoo dabaqay magaciisa iska leh waxay ku taraan malaha aruuri magaceeda luqmadaas yarta rootiga maskiinka uu cunayo bad adduunyada ku leedahay iyo meesha yar asiixayso waa ka dhimanay khalaas dad kale iska markuu baashaala marka ruwaayad baa arkay ruwaayad nin odaya dhintay ruwaayad iska daawada YouTube nin odaya dhintay marka wiilashiisa wala dardaarmay wuxuu yiri guriyihii buu kala dardaarmay nin baa sheegay tabaan daawad ruwaayad nin baa sheegay maalin sheekaysanay yiri ruwaayad xigmada ku jirtay ilaa had waa yaabara nin saaxiibana marka ruwaayadii yaan daawaday nin baa dhintay ilmihiisa wala dardaarmay ilmihii wuxuu ku yiri
saas wax kala dhaxal mos dhaxalku dardaar ma gal laakiin hadii riwaayada xigmada ku jirta marka ilmihi uu yahay wax ku laakiin gurigaas maartay gurigaas hal la gado masaajid hal lagu dhiso oo hal liiso sadaqeeyo marka mida imaanay marka oo caruurta kamid aha dardaaranka la sheegay markaasuu waxa la leeyahay intaasna waan qaybsanaynaa intaana aaba u sadaqeynayna masaajidaan u dhisayna markaasuu mid wuxuu yiri waxaan idin sheegaa gurigaas dhaxal ku dara oo qaybiya aaba sayir aaba maxaa markuu noolaa masaajid ku dhisay aaba sayir aaba waa dhintay hadda xoolaan annagaas kale markuu noolaa masaajid ku dhisay waa والله بالله حبيبي بقصله يا مركو نولا مركو دبعو بيربا وراني واحد يقول لك تفضل خبرك وعد خبره ها ابو مركو نولا محمد سعد كل سن واي xoolaha hadda ana askari biyaa waxaan dana ku sameeyay gacba marka waxaan aad waxay masaakiinta leeyihiin lagu soo dhiibay ama dawladdu wax dawladdu leedahay in xoolaha dawladdu xoolaha masaakiinta waa xoolaha dawladda sideedaba zakada Somalia zakada wax xoolo dawladeed waa zakadu dhaxgal aada masaakiin lagu kalmeeyaa wax yar baa meelaha ka oo service oo meesha wada magaciisiga bariga hore aadi jiray laakiin number 1 waxa iska masaakiinta masaakiintu waxoodii marka hadii dabaqay lagu dhisto walaal macaan ogow mid la soco ilmaha hadana ma kuma quruxsanaanayaan adigana ma calafsanaysid luqmadaas adduunyada kaga tagaysaa bas marka wixii la doonaa hadhow laga sameeyaa wixii la doonaa kuwana abal kaaga hina ku raaxaysana haddii doona khamri ku cabaayeen oo masaakiinta meelaha loo soo jeesto haddaan urka bahweynta naafada nahayna waxaan leenahay annaga dhan walba waan ka aradanahay wacyigelin saa'id aan u baahanahay iskuulada in lagu xusaan u baahanahay in dastuurkana lagu xusaan u baahanahay ilmaha la leeyahay alif wax maale ya alif kaas raba in lagu in anaga la dhigo alif wax maale marka hore wax maale ba hoos kaale مقرنسا وحمالة ها ألف مسكين ككلمة كان وراك عن قبو إن ما هلو بروا إن أشيء وحمالة ما ده اللي يجينا إن مسكين ككلمة إحسان كونا كجرا كلمة أنا القرآن كمعناه ده ألف كود وقرآن بلغة وضع القرآن كي على برن ملهي لكن وحن كوضع معناها المها وإن هنجاد القدرة إن مساكين أي أطران إن مساكين أفضل كاستان أطران واحترام مقرنسا ها المها اسكولada in loogu dhigo waa dadka naafada in wasaarad iyaga khaas u ah oo shaqadooda dadka naafada u adeegto shaqadooda iyaga adeegto waxbarashadooda haday tahay iskuulada qaabka dadka u xiriirinayaan waxyaabo in wasaarad la siiyo waa ya ma hay'ad yar oo intuu nin dhax fariisto oo waliba brown gaarin ka ah taas loo dhiibanayo wixii ka soo baxana dabaq lagu dhisanayo ma taa lama rabo wasaarad ay dadku naafada ay wataan يا لو باهين هذا دون تاه وين كان راعي وسارت سبورتنج انت اللي مقيسي واحد بهوينت وربهوينت واحد انت رسم عنيو قف الهي سيده بنعي والله الدنيا دي بهوين واحد ليه waxaan ka wadaa بهوينت الدنيا iyo ya بهوينت caalamka ilaa caalamkan maqaysa dunida wax ilaahay qof u nacay cid wax adduunka hadda sugu yimaado Yurub iyo Mareykan meel bada sugu yimaado inay macnaheedu in ku hagaag ku qurxiyaan kuma qurxin karaan waxa ku qurxin karo wuxuu ilaahay ina qaat kaliya quraankiisa ilaahay wuxuu ku jira in rahmatullahi qariib min al-muhsinin ihsaanka markaas ma saa ilaahay naxariis ku siyaadinaya bahawinta caalamkii waxay ku siyaadinaysaa malaha ma garanaysaa waxaan ku soo gabagabeynayaa haddii taas waan wadaynaa insha Allah barnaamijkanagii oo xiriirka u dhaxeeya Soomaali iyo adduunka iyo sababka aan soo qaadayna waxyaabahaas dhan saddex barnaamij laba barnaamij ma caawis dhaxgelinay oo ah ki xiriirka dunida inta kale naafada xiriirka leeyihiin iyo sababta ay dadka naafada ah in xiriirkooda la wanaajiyo faa'iido ku jirta waxay tahay ihsaan markaas sameeyay ilaahay isna raxmadiisa ku siyaadinaya saasan ka wada macna sababku muxuu yahay sababku waxa weeyaan macnaha oo ahmiyada ku jirta waxa weeyaan markaad ihsaan sameeyso ilaahay raxmadiisana aad wax badan oo buuran ka helaysaa haddii laakiin ihsaan laga waayo oo dadka masaakiinta u naxariisan weeyo ilaahay daaqadu ka xirana jazaan wifaqan ya Soomaali maanta haysata ilaahay markii dadka naafada masaakiinta aha ee la rabay in ilaahay kaalmeeyo markaas kaalmo ahsinu in Allah yuhibbul muhsinin dadka masaakiinta kaalmeeyo markaas in kaalmeenaya yani idin naxariisanaya raxmad
wixii dhan way ka tageen ilaahayna marka dulligaasi ku jiraan marka adduunyadana maanta Soomaali waa ugu dullisan hadday meeshaasi ay hagaajin waayaanna waxa waaye weligood dulnimada bay ku jiraan badbaday sheegayaan hadda badbadan tan cas iyo tan madow iyo tan guduudan wax oo dhan bidix iyo midig xagga loo kala tuuraa maxaa yeelay dad ihsaan laga waayo ilaahay ma rabo runta fiican ma rabo waxa waaye sawaaxiligaas iyo axmaarka ka qaylinaysan yaa la ku kala daraya xaqiiqatan marka halkaas ku soo gabagabeynaya maanta barnaamijkana wixii ka dambeeyana bahweynta naafada iyo raggaas ayaan ku wareysan doonaa insha Allah wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaah